wasiirka macdanta iyo tamarta dowladda Somaliland ayaa soo gaaray gegada diyuuradaha ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Socdaalka wasiirka ayaa waxaa ku weheliyay agaasimaha wasaaradda macdanta iyo tamarta waxaana si wada jira halkaasi ugu soo dhaweeyay jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. wasiirka macdanta iyo tamarta Xuseen Cabdi Ducaale oo warbaahinta kula hadlay iridda hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Cape Town ayaa waxa uu ka warbixiyay waxa uu socdaalkiisa salka ku hayay sida ula socotaan aniga iyo agaasimuhu halkan shaqaan u nimi shaqadaas oo ah inaanu ka qayb galno shirweyne caalami ah oo macaadinta arrimaheeda lagu gorfeynayo oo sanadkii walba ka dhaca magaalada Cape Town shirkaas waa shirka ugu ballaaran adduunyada ee la dhigay moogta lagu gorfeeyay macaadinta wax ku saabsan farxad weyn bay noo tahay maanta inaynu maalinkan maanta heer maqaam sare ah lagu casumo jamhuuriyadda Somaliland oo aanu matalayno aniga iyo agaasimuhu casumaado kaliya inaanu nagu casuminay inay fursadna siiyeen in aynu 17 dal oo Afrika oo wasiiradooda ay ka hadlayaan inuu ka mid noqono waanu maalinkan maanta fursad u helo inaynu badheeraheena dadweynaha u sheegno khayraadkiina uga waranno dimuqraadiyadda iyo xasiloonida iyo amniga aynu haysano uga waranno dal la maal gashan karo inaynu nahayno uga waranno fursad weyn markaa noo siinaysa markaa inaanu ka hadalno oo aanu maqal iyo muuqaalba ku yeelano shir caalami ah maqaam kaale aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu si weyn ugu mahadceliyay jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan magaalada Cape Town kuwaasi oo si ballaaran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. halkan waxaan aad iyo aad magaranaysaa ugu faraxsanahay soo dhaweyntan diiran ee aan lama filaanka ahayd ee aan reelis lahayn intaasoo qof oo jaaliyadda reer Somaliland ba Cape Town jooga inay maanta halka aniga iyo agaasimaha macdanta jamhuuriyadda Somaliland aniga wasiirka macdanta iyo tamarta Xuseen Cabdi Ducaale laakiin ma filayn inaynu jaaliyad inta la galeeynahay day waxa weeye iskama kan qariyeen waxa weeye waan idin ma laha waxa la meesha day waa wadamo daalkii ugu dambeeyay Afrika halka ciidan ka joogto marka runtii aad iyo aad baan ugu diirsanay aniga iyo agaasimuhu inaan maalinkan maanta waxa soo dadkeena iyo calaamadeena iyo maalinkan maanta halku isugu moogta naga qaabilaan airportka Cape Town. dhanka kale qaar ka mid ah jaaliyadda Somaliland isla markaana ku sugnaa garoonka diyaaradaha ayaa cabiraya dareenkooda ku aadan imaashaha wasiirka tamarta iyo macdanta Somaliland Xuseen Cabdi Ducaale. bismillaahir rahmaanir rahiim aniga ku hadlaya magaca jaaliyadda Somaliland ee dalkan Koonfur Afrika gaar ahaan jaaliyadda qaybteeda Cape Town oo ah Nuuridiin Sheekh Xuseen Cali waxaan marka ugu horeysa aan aad iyo aad u mahad ku soo jeedinaynaa wasiirka macdanta iyo tamarta jamhuuriyadda Somaliland mudane Xuseen Cabdi Ducaale iyo agaasimaha oo shir caalami ah heerkiisu aad u sareeyo lagu casuumay jamhuuriyadda Somaliland anigoo maanta aad u faraxsan oo la kulmo South Africa ku nool aad u faraxsan waxa la kulmay wasiirkayga Somaliland oo igu yimiday geeska Afrika wasiir Xuseen Maxamed waxaan leeyahay welcome soo dhawow dadka adiga jooga oo soo dhaweynayaan aadna waan kugu faraxsanahay. wasiirka ayaa waxa uu maanta ka qayb gali doonaa shir heer caalami ah isla markaana looga arinsanayo arrimaha tamarta iyo macdanta waxa uuna shirkaasi socon doonaa muddo 3 maalmood ah. xasan kaafi maxamed shire telefishinka caalamiga Home Cable Koonfur Afrika.